warar xaqiiqo ah bariga dhexe bariga fog falanqaynta dhacdooyinka maalinle xog waran idaacadda buuluxubay ka dhigo wehelkaaga. assalaamu calaykum kulanti wanaagsan. saacadihii ugu dambeeyey maanta run ahaantii Israa'iil siyaasiyiinteeda oo dhan waxay u muuqdeen in dagaalka Iiraan ay kula jiraan gacanta ay ka taagteen. waxaa laga yaabaa inaad saas aaminsan tahay, laakiin waxaa jira aragti kale oo run ahaantii kaa qarsoon, aragti diimeed oo run ahaantii kaa qarsoon. sida maanta lagu soo daabacay kanaalka toddobaad ee Israa'iil, anigana aan ka soo xiganay kanaalka Al Jazeera, Netanyahu waxa uu booqday Masjidul Aqsa, kadibna waxa uu tagay gidaarka loo yaqaan gidaarka baroorashada, halkaas uu alla weyne ugu mahadnaqay sida markaas isagu aaminsan yahay ama yuhuudda ay aaminsan yihiin weerarkii lagu qaaday Iiraan oo ay Mareykanka iyo Israa'iil ku wada qaadeen. maxay tahay marka salaadan uu alla ugu mahadnaqayo weerarkan lagu qaaday Iiraan iyo sidaas oo kale xulafadeeda gobolka Xisbullah iyo sidaas oo kale iska caabinta Falastiiniyiinta? arrinkaas waan ka dabageyn doonaa. waa arrin caqiido yuhuudda iyo masiixiyiinta qaarkood ay aaminsan yihiin, innagana muslimiinta ah aragti kale ayna ka aaminsanahay. haddaba mid ka mid ah wargeysyada Israa'iil kuwa ugu caansan ee loo yaqaan Yedcud Ehronoth ayaa waxa uu wareystay mid ka mid ah mas'uuliyiinta Israa'iil, midkaasi oo sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay wadahadal inay la gasho Iiraan haddii Cali Khamenei uu yiraahdo xabad joojinta diyaar ayaan u ahay. arrinkaas oo run ahaantii ah mid lala yaabo. dagaalkan yaa bilaabay Israa'iil, yaa hadda la doonayaa marka xabad joojinta inay ogolaato. Israa'iil ayay ahayd, laakiin waxay leeyihiin Cali Khamenei ha ogolaado xabad joojinta inay uu diyaar u yahay. runtii marka xaalad rucbi weyn ayaa ka jirta gudaha Israa'iil. maanta Netanyahu waxa uu yeeray qaar ka mid ah wadaadada Israa'iil, waxaa loogu yeeray gudaha Masjidul Aqsa, waxaa loo sheegay Israa'iil burburkeeda inuu soo dhow yahay sida ugu dhaqsiyaha badan ilaa ay xad, maadaama ay ku guulaysteen sida iyaga aaminsan yihiin Iiraan awooddeeda inay burburiyeen qayb ka mid ah. dhanka kale marka aynu fiirino, inaga u soo laaban doona sheekadeenna, gudaha Israa'iil waxaa ka jira xaalad walbahaar ah. shacabkii Israa'iil waxay bilaabeen inay isaga qaxaan guud ahaan gumaystaha Israa'iil. maanta wasiirka gaadiidka Israa'iil waxa uu sheegay in la ogolaan doono diyaaradaha Israa'iil inay yimaadaan, laakiin diyaaradahaasi ay qaadi karaan halkii diyaaradba rakaab dhan ilaa 50. markii arrinkaasi ay dhacday, waxaa la arkay in diyaaraddii ay iska diiwaangeliyeen dad kor u dhaafaya 25,000. daqiiqadiiba boqolaal qof ayaa isdiiwaangelinaya, kuwaas oo doonaya inay isaga cararaan gumaystaha Israa'iil. arrinkaas oo walwal diimeed ay tahay, ma ahan arrin ay cabsi ka qabaan Iiraan in gantaale ay kusoo tuurto. waa sida hadda soo baxayso, markii aad fiirsana kitaabadooda waxay qorayaan. arrinkaas anigoo maanta baaritaan ku haya oo websaydyadooda fiirinaya ayaaba alla mahadii kanaalka Al Jazeera iga soo baxdaba. haddaba aragti ahaan maxay aaminsan yihiin? yuhuuddu waxay aaminsan yihiin marka qiyaamaha ay soo dhowdaa, sida innagaba sunniyiinta ayna aaminsan ama muslimiinta guud ahaan bay aaminsan yihiin, marka qiyaamaha ay soo dhowdahay waxaa imaan doona qolo lagu magacaabo Juuj wa Maajuuj ama Yuug wa Maajuuj, dadba siday u yaqaaneen. yuhuuddu iyagu kitaabadooda waxa uu qorayaa wax loo yaqaano Nabawdul Xasaaqiil, jabtarka loo yaqaano 38-39 wuxuu qorayaa inay imaan doonaan koox loo yaqaano Yuuj wa Maajuuj. kooxdaasi waxaa ku jira Farisiyiin ayaa ku jira, Iiraaniyiin ayaa ku jira. sidaas oo kale kooxdaas waxaa ku jira koox loo yaqaano Kuush oo asalkooda ka yimid Suudaan iyo Ethiopia. waxaa kooxdaas sidaas oo kale ku jira ayay aaminsan yihiin koox lagu magacaabo Fawd oo Liibiya iyo waqooyiga Afrika ka yimid. waxaa jira oo sidaas oo kale kooxdan Juuj wa Maajuuj ku jira ayay aaminsan yihiin koox lagu magacaabo Mashak, Tabul, Gomar iyo Goharmer, kuwaas oo qaarkood ay ku macneeyeen inay yihiin dad ka soo jeeda Turkiga iyo Ruushka. marka waxay leeyihiin qiyaamaha marka uu soo dhow yahay, Juuj wa Maajuuj waxaa ku jira koox Farisiyiin ah oo Iiraaniyiin ah oo doonaya in Iiraan Israa'iil ay jajabiso, in yuhuudda ay burburiyaan. sidaas darteed marka Donald Trump iyo Netanyahu aragti ahaan waxay aaminsanaayeen in qiyaamihii ay soo dhowdahay, awoodda Iiraan in la burburiyo, maadaama Iiraan ay tahay cadowga koowaad ee masiixiyiinta iyo sidaasi oo kale yuhuudda. waa aragtida markaasi sida wargeysadooda maanta ay qorayaan. sidaas oo kale kanaalka Al Jazeera lagu soo daabacay.
marka Netanyahu waa midda maanta keentay inuu tago Masjidul Aqsa halkaas uu Allah uu ku baryo oo yiraahdo Allah adiga ayaa mahadsan inaan awoodii Iiraan aan burburinay inaga iyo sidaas oo kale Mareykanka waa sida markaasi wargeysyada ay qorayaan marka xaalad rucbi iyo layaab ayaa maanta jirtay maadaama la arkayay Netanyahu iyo wasiiradiisa iyo kuwa kale ay leeyihiin yani hadda wada hadal diyaar ay u nahay in Iiraan ay la wada hadalno waxay leeyihiin Iiraan balah ayaan ka jafnay hadda diyaar ay u nahay gobolka bariga dhexe yani wayn joogi doonaa yani wayn ku sii sugnaan doonaa laakiin waxay leeyihiin hadda waxaynu hubnaa awoodii cabsida ayna ka qabnay Iiraan in yani Mareykanka uu nagu kaalmeeyay marka run ahaantii kuma dhihi karo Israa'iil dagaalkan way ka baaqsatay way geli doontaa haddii Iiraan gantaale ay ku soo weerarto laakiin maanta odaygii oo faarkii Netanyahu runta ayaa loo sheegay warniyahow orodkaaga ayaa batay maalinba meel ayaad u cararaysaa dantaada iyo siyaasadaada ayaa fiirinaysaa wadaadadii ayuu kula kulmay Yuhuudda gudaha Masjidul Aqsa waxaana loo sheegay Israa'iil burburkeeda inuu soo dhow yahay maadaama hadda Iiraan oo kaliya weerar ay ku soo qaaday kooxahan kale ee Turkida iyo Ruushka oo ay magacyada kala duwan ay ku kala sheegeen tusaale ahaan Turkida waxay ku sheegeen Mashak, Tubal, Gomar, Tohorgamar intaasoo dhan Turkiga iyo Ruushka ay ku sheegeen kuwaasina waa inoo dhiman yihiin ayaa la yiri hadda haddii aad aaminsan tahay in yani Iiraan aad ka adkaatay marka qiyaamaha ma dhici doono dhanka kale Iiraan iyagana waxay aaminsan yihiin marka qiyaamaha uu soo dhow yahay nin la yiraahdo Mahdi inuu soo bixi doono waa sida Shiicada ay aaminsan yihiin Mahdigaas oo qiyaamaha marka la gaaro yani adduunka dhan nabad ka dhalin doona halka muslimiinta sunniyiinta iyagana ay aaminsan yihiin qiyaamaha markuu dhici rabo Nabi Ciise inuu imaan doono yani Masiixu Dajaal uu ku qaban doono halka loo yaqaano Ben Gurion garoonka halka uu ka dhisan yahay halka Ben Gurion uu ka dhisan yahay ayuu ku qaban doonaa Masiixu Dajaal halkaas ayuuna ku dili doonaa marka aragtiyo kala duwan ayaa la kala aaminsan yahay hadda marka waxay aaminsan yihiin awoodii ay cabsida ay ka qabeen Yuuj wa Maajuuj ayaa soo bixi doona oo Farisiyiinta ayaa garab soo siin doona hubka nuclearka ayaa ku baabi'in doona ay aaminsan yihiin in maanta ay yani soo gabagabowday marka xaaladaas ayaa laga yaabaa inaad ku jahwareersan tahay oo Netanyahu iyo siyaasiyiintiisa ay leeyihiin hadda ayayna diyaar u nahay sidaas oo kale Mareykanka uu leeyahay hadda ayayna diyaar u nahay wada hadal inayna la galno Iiraan insha Allah wixii kale arrimahan ka soo kordha ee xogta wargeysyada aan ka soo helana halkaan idinkugu soo gudbin doonaa ka dhiga wehelkaaga idaacada Buuluxubay warar xaqiiqo ah bariga dhexe bariga fog falanqaynta dhacdooyinka maalinle xog waran idaacada Buuluxubay ka dhiga wehelkaaga